Caicedo vs Rice. Paul Merson oo magacaabay xidiga qadka dhexe ee ugu fiican Premier League waqti xaadirkan. Halyigii hore ee Arsenal Paul Merson ayaa ku dhawaaqay in Declan Rice uu yahay qadka dhexe ee ugu fiican hadda Premier League, isagoo ka doorbiday xidiga Chelsea ee Moses Caicedo. Markii la weydiiyay inuu magacaabo noosigiska ugu fiican horyaalka, Merson ayaa si toos ah u yiri, tani waxay u dhaxaysaa Rice iyo Caicedo, waxaana dooranayaa Rice. Rice ayaa xil ciyaareedkan si awood leh u hogaamiyay qadka dhexe ee Arsenal, isagoo door weyn ka qaatay tartanka horyaalka. 27 kulan oo Premier League ah ayuu saftay, isagoo dhaliyay 4 gool isla markaana bixiyay 6 caawin. Sidoo kale wuxuu ka mid yahay ciyaartooyda ugu sareeya horyaalka marka loo eego taakooyinka iyo baas xiridda. Dhankiisa, Caicedo ayaa isna muujiyay tayo sare tan iyo markii uu 115 milyan ugu wareegay Chelsea sanadii 2023. Inkastoo Merson uu aaminsan yahay in Rice uu hadda ka sareeyo marka si toos ah la isu barbar dhigo, doorashada Merson waxay sii xoojinaysaa dooda ku saabsan ciyaaryahanka qadka dhexe ee ugu fiican England xilligan. Dhinaca kale, ma ahan cunsuri Rio Ferdinand oo difaacay Mourinho kadib isqabqabsigii Vinicius Jr. Halyigii hore ee Manchester United Rio Ferdinand ayaa difaacay tababaraha Benfica Jose Mourinho kadib dhaleecin xoogan oo ka dhalatay hadalladiisa ku aadan eedeymaha cunsuriyadda ee loo geystay xidiga Real Madrid Vinicius Jr. Arrintan ayaa timid kadib markii Mourinho uu diiday inuu si cad u taageero Vinicius ama ciyaaryahanka Benfica ee Bristiani, isagoo taa beddelkeeda ku eedeeyay Vinicius inuu kiciyay falcelinta taageerayaasha Benfica kadib dabaaldeg uu sameeyay markii uu dhaliyay goolka kaliya ee kulankii lugta hore ee playoffka wareegga 16 ee Champions League. Isagoo ku hadlayay barnaamijkiisa Rio Ferdinand Presents, Ferdinand ayaa yiri, waxaan u maleynayaa Jose waqti kadib inuu fariisan doono oo yiraahdo, waxaa laga yaabaa inaan si qaldan u wajahay arrintaas, laakiin taasi Jose Mourinho kama dhigayso cunsuri. Ferdinand ayaa intaas ku daray in Mourinho uu wax badan u qabtay ciyaartooyda madowga ee adduunka oo dhan, kuwaas oo u arka sidii aabe oo kale, isla markaana uusan aaminsaneyn in Mourinho uu leeyahay dabeecad cunsuriyadeed. Ferdinand wuxuu qiray in qaabka uu Mourinho u wajahay xaaladda ay ahayd mid qaldan, inkastoo uusan u arkin mid ku salaysan nacayb midab. Ugu dambeyn, Rafinha oo u goodiyay Atletico Madrid ka hor kulanka lugta labaad ee semifinalka Copa del Rey. Kabtanka Barcelona Rafinha ayaa muujiyay kalsooni buuxda, inkastoo kooxdiisu 4-0 looga soo badiyay lugtii hore ee semifinalka Copa del Rey oo ay la ciyaareen Atletico Madrid garoonka Metropolitano. Isagoo ka hadlayay kulan su'aalo iyo jawaabo ah oo lagu qabtay kanaalka rasmiga ah ee YouTube-ka kooxda, Rafinha ayaa sheegay in Barcelona ay awood u leedahay inay sameyso soo laabasho cajiib ah marka ay lugta labaad ku ciyaarayaan Spotify Camp Nou toddobaadka soo socda. Waxaan ku kalsoonahay inaan ciyaari karno kulan weyn, waxaan aaminsanahay inaan awoodno, ayuu yiri Rafinha. Haddii ay jirto hal koox oo soo laaban karta waa anaga. Rafinha ayaa qiray in hawshu aysan sahlanayn. Waan ognahay inay adkaan doonto, waa soo laabasho aad u adag, laakiin waxaan u maleynayaa inaan diyaar u nahay wax soo socda. Barcelona waxay u baahan tahay bandhig taariikhi ah si ay ugu soo laabato 4-0, balse hadallada kabtanka ayaa muujinaya niyad sare iyo kalsooni xoogan oo ku saabsan awoodda kooxda. Ramadaan Kariim saaxiibayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warbixintii koobneed ee nagu hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii aad dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay, ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biiro oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran, mahadsanid.